waxaa jira caawa haddii loo dabaaldegayo Jubaland State of Somalia oo muddo dheer laga soo shaqeynayay waxay noqonaysaa dabaaldeg aan loo kala harin in la muujiyo haddii la yeelo أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Jubaland State of Somalia. Anora. Jubaland State hagulaysato. Jubaland State hirgasho. Jubaland State waxay ka jawaabaysaa baahida dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada Jubbooyinka iyo Gedo oo ay u baahan yihiin inay helaan dawlad dantooda daryeesha nolosha basic ee human being u baahan yahay carruurteenu halkan ay ku haystaan hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay nabad iyo nolol iyo kala dambeyn iyo sharci inay helaan ayay u dhisteen lidna kuma aha cid Soomaali ah ama dawlad ha ahaato ama cid gaar ah waxay ka soo baxday baahida dadkaasi u qabaan inay helaan waxaan ilaahay uga baryaynaa maamulka cusub ee Jubaland inay noqdaan kuwii hanta wixii shacabkooda u doorteen waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubaland yaan hambalyo halkan uga dirayaa diiran oo kaliya laaba waxaana ballan qaadaynaa haddaanu nahay shacabka reer Jubaland inaan garab taagnaano si ay u gutaan xilkooda beenta sheegay ee dadka Soomaaliyeed gawrici jiray yuu xabad intuu u qaatay ku xoreeyay Kismaayo baryo kuma imaanin Axmed wuu dagaalamay naftiisu huray markii u dambeysay Axmed 9 xabadood baa ku dhacay ninkii ogaa uu ogyahay xabsi buu galay intaasoo dhibaato la soo kulmay markuu soo noqdayna xabadii uu halkii ka bilaabay maantana wuxuu ku noqday madaxweynaha Jubaland State-ka Jubaland uu madaxweyne ka yahay dadka reer Jubaland hadday guda joogaan iyo hadday dibad joogaan shaqa idin taalo midnima loo baahan yahay wadajir baa loo baahan yahay dhaqaala loo baahan yahay dalku kuma dhisno cod kaliya dadku xoolaha loo baahan yahay la bixiyo ciidamada iyo dawladdu dhaqaala ay ku shaqeeyaan baa loo baahan yahay dadka waxaa asal u ah iyo dalka waxaa asal u ah annagaas ad aragteen oo muxuu ahaa dhibkaad aragtay ku nool ayaa wax nala bidaya marka waxaa weeye qof kastoo innaga ka mid waxaa looga baahan yahay inuu u shaqeeyo si daacadnimo ah oo muxuu ahaa wadaniya leh oo Soomaalinimo leh waxaan leeyahay Jubaland hanola Soomaaliyeed hanola wixii la diidan oo naga xaqan Allah naga qabto wixii la taageersan oo xaq lagu taageersanna Allah naga yeelo wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh ma halkaan waxaa iska leh jaaliyadda Soomaaliyeed ee Jubaland ee ka kala yimi magaalooyinka fogfog oo ay kala hogaaminayeen walaalkan Ilyas Gaboose iyo Xasan Faarax Shire way istaageen dad badan oo waxaa la yidhi anaa haray looma hadlo waxaan doonayaa marka hore inaan idin soo gudbiyo
salaan iyo hambalyo aan idinka sido madaxda hogaamiye dhaqameedka ururka dhalinyarada ururka hooyooyinka iyo ururada rayidka ah ee ka jira magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee hadda ah xarunta ku-meel gaarka ee maamul goboleedka Jubbaland. waxaa la yidhahaa qur-aan oo dhan waxaa isugu fuuqsaday wallah xadan allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad. hadaf baynu lahayn, hadafkii wuxuu ahaa in Jubbaland la dhiso. Jubbalandna waa la dhisay, mana soo noqonayso. بسم الله الرحمن الرحيم. أهد بعد ما هتسنتين دمانتي وحين السلام يا صلاة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ما الرجال رجل يدوم أربعة وحن قاعد بفرح سنة هاي حفلته أنت بدنا قبلها إن أنت السنة كانوا حد مدعيني رجل اللي بدني. ما نقول إنه واحد أنت على إني كسر قد قال يا حاجة قدور هو بالسكوبية لكن وحين الله يا هاي حنبلية حفلة لما أنت نكون تشوف لما أنت باشا وهي مناسبة دولتها هاي إن نتهنئ دولة قبائل الصوماليات قبل كنا جبلان وحنمر بوها اسمها قاعد وسؤالنا يا لما قبله يويلش كسر دلالي حفلة المانتا إن أي سنة نقطة dadkii labada weyn ugu dambeysay guddiga maamulay iyo dhammaan dhalinyaradii hooyooyinkii ku dhafray ilaa habeenkii 4 habeenimo u ahaa sabab in aan xafladan maanta dhammaanteen isugu imaano annagoo u tahniyeynayna una dabaaldegayna gobolkeena Jubbaland. marka dadkeennii soo qaxay ee dalkoodii laga soo saaray ee hadda doonaya inay samaystaan waxay xaqa u lahaayeen amase dalkii joogtay ku rafaadsanay waxaa jira meel Soomaalidu ay degan tahay oo aan Somali Republic ahayn oo laga taageeri jiray ama dartood aynu ku soo meel marnay qodobadaas markii la isku daro laga daliil qaatay dooxada Jubba lagu dalac dooxada Jubba lagu dabaqay doorashada maamul Ahmed Baadurbaankiis la tago loo dabaaldegaya fartaajo dagaalyahanniyo dabin kabood caana isla doonta lala saarayo ulya diinkeeda marka gobolka waxa weeye kumeel gaar in laga gudboon guudka calan saaray oo gogol nasteexa dhigno gacal walaalayno inaan guusha kaanaan rabee yaa gundaha inaan guusha kaanaan rabee waa guushina waa la gaaray waxaan goobjoogkahay 870 xubnood
oo ansixiyey calanka Jubbaland iyo dastuurka ansixiyey baa goobjoog ka ahayn markii la ansixinayay farxad weyn bay noo ahayd waxaan u istaagay kaliya inaan in yar oo hordhaca idin siiyo laakiin taariikhda arrintan ay kusoo bilaabatay waxaan idinku hambalyeerayaa nin ka mid ah raggii asaaskeeda wax ku lahaa wax ka bilaabay Jubbaland dowlad goboleedkeeda in la dhiso gudoomiyihii gobolka Jubbada Hoose ayaa inala fadhiya halkan oo raggii asaasay ka mid ah oo ku dhigay barnaamijka waa Elias Madowga Boose gudoomiyihii gobolka ay u dambeeyay dowladii markii dowladda Cabdullaahi Yuusuf ay ku shaqeynaysay Baydhabo ee goboltooyaasha la magacaabay ninkii loo magacaabay gobolka Jubbada Hoose ee goboltooraga ilaa maanta markii Sheekh Axmed Madoobe loo doortay inay isaga gobolka Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak waa ciid caawa waxay ciid u tahay ummadda shacabka ciidu ma aha keliya tan diinta qofku marka uu faraxsan yahay waxay u tahay ciid weyn waxaynu u ciidaynaa u hambaliyaynaynaa dadka shacabka Soomaaliyeed ee u halgamay ka dhiidhiyey in ay waxyaalaha rabitaankooda oo ahaa inay samaystaan maamul goboleedka Jubbaland waxaan leenahay Jubbaland waa hirgashay waxaan u hambaliyaynaynaa shacabka Jubbaland waxaan u hambaliyaynaynaa odayaasha Jubbaland waxaan u hambaliyaynaynaa culimada Jubbaland anigu waxaan ka mid ahaa ergadii ka tagtay Alberta ee tagtay ee soo aragtay dadkaasi shucuurkooda meesha uu taageersanahay federalismka sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa maamulka looga dhawaaqay Jubbaland waxaa loo doortay inay ka saaraan ummadda Soomaaliyeed dhibaatadii haysatay inay ka saaraan inay la kulmaan dadka Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed kulmiyaan inay culimada kulmiyaan inay gobolada tagaan kuwa wax dhisayna u hambalyeeyaan kuwa wax dhisana inay hormuud ka noqdaan in shaqadan noocaasa la qabto laga baxo kulmiyad gaarkii khilaafkii qabiil isku leemalgarayntii buuqii بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan filayaa hadal badan iyo maharin wixii murti ahaa iyo wixii la isdhihi lahaa waa la yidhi